Assalaamu calaykum. Waxaa halkan kugu soo bandhigi doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan diyaaradaha ee daawasho wacan. Kalarada cadaanka ah ee diyaaradaha. Waxaa jira diyaarado badan oo leh kalaro kala duwan, balse kalarka ugu badan uguna caansan waa kalarka cadaanka ah, waana sababta keentay in diyaaradaha badankoodu ay leeyihiin kalaro cad. Maxaa yeelay kalarka cadaanka ah waa uu ka raqiisan yahay kalarada kale, halka kalarada kale ay qiimahooda u dhexeeyaan $50,000 ilaa $200,000 oo doolarka Mareykanka ah. Sidoo kale, kalarka cadaanka ah waa uu ka culays yar yahay kalarada kale. Marka la rinjiyeynayo diyaaradaha ayaa waxaa kora culays uu wato rinjiga, taas oo u dhexeysa 273 ilaa 544 kilogaram. taas oo micnaheedu tahay in haddii culays badan uu saarmo diyaaradda ayaa waxaa badanaya shidaalka ay gubayso diyaaradda. Sidoo kale, culayska saarmaya diyaaradda oo ah 544 kilogaram ay u dhiganto 8 qof oo weliba ku raacayso diyaaradda si free ah, shidaal badanna ay diyaaradda gubayso, sidaasna khasaare lagu galayo. Daaqadaha wareega ah ee diyaaradaha. Sannado ka hor, diyaaraduhu waxay lahaayeen daaqadaha afargeesoodka ah sida guryaha oo kale, balse 1950kii ayaa waxaa soo caanbaxday diyaarad lagu sheegay inay diyaaradaha kale ka awood badan tahay, ayna gaarayso meel aysan gaareen diyaaradaha kale ee caadiga ah. Safarkeedii ugu horreeyay markii ay hawada gashay ayaa hal mar waxaa qarxay daaqadihii afargeesoodka ah ee diyaaraddu lahayd. Dariishadahaas ayaa u adkeysan waayay cadaadiska hawada, sida ayayna ku qarxeen. Qarxaas kadib, daaqadaha diyaaradaha ee afargeesoodka ah ayaa loo bedelay kuwo wareeg ah. Daaqadaha wareega ah ayaa ah kuwo ka awood badan daaqadaha kale ee afargeesoodka ah, waxayna u adkeysan karaan cadaadiska hawada iyo waxyaabaha kale ee diyaaradda bannaanka kaga imaada ee wax gaarsiin kara. Saddexda leer ee diyaaraduhu ku leedahay baalasha. Kalarka cagaaran ayaa mar walba ku yaala baalka midig ee diyaaradda. Kalarka casaanka ah ayaa isagana mar walba ku yaala baalka bidix ee diyaaradda. Sidoo kale, waxaa jira kalar cadaan ah oo isagana ka iftiima dhanka gadaale. Nalalkan ayaa lagu magacaabaa position lights, waxaana loogu talagalay in ay shilalka ka ilaaliyaan diyaaradda xilliga habeenka. Tusaale ahaan, beelood helikobtar ayaa xilli habeen ah arkay leer casaan ah iyo mid cadaan ah. Beeloodka ayaa sidaa ku ogaanaya inay diyaaraddu ka timid dhanka midig una socoto dhanka bidix. Haddiise uu arko leer cagaaran iyo leer cadaan ah, waxa ay ka dhigan tahay in diyaaraddu ay ka timid dhanka midig una socoto dhanka bidix. Balse haddii uu beeloodka hal mar isla arko kalarka cagaaran iyo midka casaanka ah, waxa ay ka dhigan tahay in ay diyaaraddu ku soo food leedahay, ayna sidaa ugu dhici karto. Sidoo kale, haddii uu beeloodka arko kalarka cadaanka ah, ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ay diyaaraddu dhaaftay, ayna sidaa hortiisa ku marayso. Maxaa yeelay kalarka cadaanka ah waxa uu ku yaalaa dhanka gadaale ee diyaaradda. Nalalkan oo lagu magacaabo position lights ayaa beeloodyada waxay ka ilaaliyaan in ay shil galaan ama diyaarad kale ay ku dhacaan xilliga habeenka ah. Kuraasta leh midabka buluuga ah. Waxaa jira hal shay oo ay dhammaan diyaaraduhu ay ka siman yihiin, waana kuraasta leh midabka buluuga ah. Midabka buluuga ah ayaa diyaaradaha waxaa loogu dooray in midabka buluuga ah uu yahay mid qarsan kara wasakhda iyo waxa la midka ah. Sidoo kale, khubarada cilmi nafsiga ayaa waxay sheegeen in midabka buluuga ah uu tilmaamayo nabadda, waa midabka badda degan iyo cirka cad. Sidoo kale, midabka buluuga ah waxa uu yareeyaa garaaca wadnaha iyo neefsashada, midaasoo ka dhigtay in qofka uu dareemo deganaan iyo xasilooni marka uu ku safrayo diyaaradda. Sannadihii hore diyaaraduhu waxay isticmaali jireen kuraas leh midabka casaanka ah ama gaduudka, balse khubarada cilmi nafsiga ayaa ka digtay arrinkan, iyadoo markaas lagu bedelay kuraas leh midabka buluuga ah. Ma tahay arday dhigta dugsiga hoose dhexe ama sare? Fadlan xagga hoose noogula wadaag midabka aad adeegsato inaad wax ku qorto. Bayloodyada iyo timaha garka. Waxaa jirta sabab aysan bayloodyada aysan u deysan timaha garka, balse marmar ayaa lagu arkaa shaarbada. Sababaha aysan u deysan timaha garka ayaa waxaa ka mid ah inay ku adkaanayso neefsashada marka uu xirto tuubada oksijiinka, xitaa waxaa halis ah inay u xirmi weyso. Haddii ay bayloodkana ku adkaato neefsashada, ma yeelan doono awood uu ku caawiyo rakaabka haddii uu shil dhaco. Sidoo kale, bayloodyada waxyaabaha laga mamnuucay ayaa waxaa ka mid ah
in labada baylood ay cunaan cunno isku wada mid ah, iyada oo laga baqayo in labada baylood ay dareemaan xanuun labada cunno ay cunaan awgeed. Waxaana mar walba lagu amraa inay cunaan laba cunno oo kala duwan, si haddii mid uu la xanuunsado cuntada, uu kan kale diyaaradda uu wado